السلام عليكم وان السلام ولا لهيغا waxaan rabaa inaan la wadaago odhahdayda oo kamid ah afkaartayda si aan u kaalmeeyo asxaabtayda kuwaas oo qiimo badan kula agtayda iyo qalbigayga bal aan kula wadaago fikirkayga adigoo ah walaalkayga ama walaashayda intaas waa kaftankayga ku soo biir kanaalkayga sina sheer galay muuqaalkayga daawadayaal ku soo dhawaada xalqadii afraad ee aynu ka diyaarinay xog taariikheedka raagowgaas maanta waxaynu soo qaadan doonaa qisadii iyo gabaygii biiwaaye ee uu tiriyay raagowgaas markii uu libaaxu ka cunay gabadhiisii Faadumo ee aadka u jeclaa raagi ayaa cilmi xuseen oo abtigii ahaa ka doontay gabadh uu dhalay oo la yiraahdo Cabban waana la siiyay gabadhii waana la xididay raagowgaas dabadeed isagoo aan loo meherin ayuu reerkoodii ku laabtay hase yeeshee alalaaskii arooska isagoo tabaabushaysanaya ayaa gabadhii nin kala soo doonay oo la yiraahdo Axmed ninkaana waxa dhalay Gradwilwal goor galaba ayuu Axmed aqalkii cilmi xuseen soo hortubay konton halaad oo yarada oo aan mid ka dhacda lahayn odaygiina mu oran raagi ayaan kula xididay Cabbane waa uu ka gudoomay kabacdi markuu raago soo laabtay ayaa arrinkii uu maqlay aadna uu xanaaqay odaygii ayaa ku yiri maandhow la ceebooye Faadumo Cabban ka yar ayaan kugu daray anaana kugu xoolaynayee aan ku duceeyay sida quraal noqo taasna raago uu ogolaaday isaga iyo Faadumo intay iskuursadeen bay si aan la filayn isku jeclaadeen muddo haday wada joogeenba Faadumo reer aabaheed ayay u xoolo doonatay waxaana la soo siiyay awr goorar ah kar wada mariiman qumbayaal sixina iyo wax kasto ciidadan la soo raacin jiray oo kaliya lama soo dirine waxa lagu soo daray adduunka reerka ay ka timi ragii la gaarsiin lahaa si kastay dhaba soo hayaanba goor casar dhiiqa ayaa waxa soo muuqday guriyihii reer raagowgaas ay ku jireen ragii Faadumo lagu soo daray ayaa waxay ku tashadeen si ay adduunkan ay wadaan goor barqa loo arko afaafka reerka inay caawa ku furtaan hase yeeshee talada Faadumo way ka diiday waxayna tiri raage oo inta ay jira lagama yaabo inaan caawa halkan ka seexdo dabadeed waa inoo barintay ragii ku tiri ayay u dhaqaaqday xaqii shanqadha reerka ka soo yeedhisay maxaad se ku falaysaa iyadoo talaabada hoosta ka boodaysa ay caleenteedii cirka ka soo dhacday wax yar ka bacdi iyadoo garaaryaha tuuranaysa ayaa libaax diihaalsani meel jiqa kaga soo baxay oo laba kala jaray gaajadiina iskaga biyay subaxii markuu waagu bariyay ayaa waxa isku yimi ragii Faadumo lagu soo daray iyo raage waxaana isweydiiyeen annaga naga timiye idinka mid soo gaadhay waxa la iskugu jawaabay maya waana la baadi doon tagay inta kadib si kasto ay socdaalkoodii dhexda kaga jiraanba waxay ku soo baxeen lafa aan hilibkii aad uga qalalin waaba Faadumo raago naxdin iyo murugo iyo tiiraanyo way istaayeen kabacdi waxa uu tiriyay gabaygii baroor diiqda ahaa ee la magac baxay biiwaaye ee ay tuucyadiisa ka mid ahaayeen sida koorta iyo cuboo la suray koramo buubaala ama geel kareeb oo nirgaha laga kaxaynayo ama beela kaynaanahoo kor u hayaamaya ama ceel karaarada jabshiyo webi karaar dhaafay ama habar kurkiyo wadnaha lagaga kawsiiyey ama kaaldalay qaybsatiyo kur iyo dhaan yaabis shinni kaaluf galay ama sidii koronkorkoomay xalay kolole aygii meeladin kaami reeruhiye kambalkii ardaagii miyaa laygu kaliyeeyay wixii laygu kunyeeyay miyaa igu karaamoobay kumbiskii miyaa laygu gubay koligii ii buuxay kob abaarahoo dhexe miyaa kooray la meeray ku miyaan ka jaabiixiyaan kabaha loo haynin maantana kataankii miyaa laygu kala tuuray kun iyo kow kurtood dumar haddii laysu wada keeno kollan waxaan la helayn haween Faadumo kale waa halkuu Cabdiqilaahi qarsha ka lahaa nina waa dhintaa nina waa dhashaa dharaar walba la isdhaafayaa halkaa inoo joogto xubinteena afraad waana soo jeedintii Salmaan Axmed Jaamac channelka ka daawanaysna waa bandhig history nala soco xubnaha dambe oo ka xiiso badnaan doona